السلام عليكم إذا هانتين بطوريال ملكستو كسوغانتين waxaad leenahay haydi samaatoon haydi wacdo waa barnaamijkan kaga hadli doono Soomaaliland iyo maalinta qaran ee 18 May waxaan idin socodsiin doonaa Xamse Saciid Maxamed iyo Nuur Cabdiraxmaan Iimaan Soomaaliland waxay ku taalaa qaaradda Afrika waxaana ka laageeska bari waxay xuduud la wadaagtaa dalalka kale ah Djibouti Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya dhinaca waqooyi waxaa ka xigay badda cas oo ku fadhida 908 km². Soomaaliland waxay ku fadhidaa dhul badkeedu dhan yahay 139 km². Soomaaliland lafdhabarta ugu weyn ee dhaqaaluhu waa xoolaha nool. Sidoo kale Soomaaliland waxay ka kooban tahay 6 gobol oo kala ah gobolka Maroodijeex, gobolka Togdheer, gobolka Saaxil, gobolka Awdal, gobolka Sanaag iyo gobolka Sool. Soomaaliland sida dawliga waxaa loo yaqaanaa Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ka mid ahay wadamada hukuumaysta Ingiriisku waxaana xorriyadda Ingiriiska kala soo laabatay 1926 Juun 1960. Soomaaliland waxaa soo maray 5 madaxweyne. Madaxweynihii koowaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Axmed Cali ku-xigeen Xasan Ciise Jaamac. madaxweynihii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ku-xigeen Daahir Riyaale Kahi. madaxweynihii saddexaad Daahir Riyaale Kahi. madaxweyne ku-xigeen Axmed Yuusuf Yaasiin. madaxweynaha afraad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo. ku-xigeen Cabdiraxmaan Ismaaciil Sayliix. madaxweynaha haatan talada dalka haya Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeen Cabdiraxmaan Ismaaciil Sayliix. haddaba in ka badan 10 sano oo halgankii xoogagga iyo SNB ay hogaaminayeen kadib waxay waxgaradka siyaasiyiinta aqoon-yahanka iyo qabaa'ilka iyo bulshada Soomaaliland ay ku heshiiyeen 18 May inay dib ula soo noqdaan xorriyaddii luntay 26 Juun 1960. Allow dawr Soomaaliland allow dawr 18 May waa maalin ku xusan taariikhda Jamhuuriyadda Soomaaliland waa maalin jirashii hore u ahayd tiirasha dambana dheerigan iyo rujo waa maalin ay Soomaaliland ka badbaadeen ku dhacdo gudmidow waa maalin mudan in dib loo xasuusto maalmihii madooba halgankii rafaadkii barakicii iyo baabi'ii ku dhacay bulshada Soomaaliland waa maalin mudan in dib loo xasuusto kumayaankii haliyay ee u duurgalay inay dulliga ka qaadaan shacabkooda waa maalin mudan in loo duceeyo kumayaankii haliyay ee rafaadka dheer u soo maray Soomaaliland 18 May waa maalin mudan in laga farxiyo agoontii iyo dumarkii ay ka tageen halgamayaashaasi ma soo koobi karno qiimaha ay maalintan ku fadhida qarankan iyo muhiimadda ay u leedahay Soomaaliland haddaba waxa ay leedahay laba taariikhood oo kala duwan taariikhda koowaad ayaa waxa ay dib ugu noqonaysaa 1991 waqtigii lagala wareegay xornimadii luntay 1960 taariikhda labaad ayaa waxa ay tahay taariikhdani hadda socota kana soo bilaabmaysa 1991 waqti badan ku lumin mayna inaan ku sheekeyno duruufihii hore iyo marxaladihii kala duwanaa ee soo martay Soomaaliland 1991 balse waxaan istul taagi doonaa xaaladihii marxaladihii ay kala duwanaa ee Soomaaliland soo martay tan iyo 1991 haddaba waxaa Soomaaliland lagu guddoonsaday magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco 18 May 1991 waxaa shirweynahaasi isugu yimid dhammaan beelaha Jamhuuriyadda Soomaaliland warawaana ku jirin beelihii ka qayb qaatay halgankii loo soo maray dib u xoreynta dalka waxa uu shirweynahaasi noqday kii ugu horreeyay ee isku saamaxeen dhammaan beelaha Soomaaliland ana shir gudoominayay golihii guurtida iyo SNB haddaba ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya Cabdiraxmaan Axmed Cali oo gudoomiyihii SNM oo isagu haatan dhintay iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Xasan Ciise Jaamac isagu ilaa haatan nool iyo gudoomiyihii golaha dhexe Ibraahim Meegaag Samatar ayaan wax ka soo qaadan doonaa khudbadii ay maalintaasi ka jeediyeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Dheer oo laga dhawaaqay doon isku taaga Soomaaliland 20 Juun 1960 in daawadayaal waxaanu soo gaarnay guntiga gabagabadii barnaamijkan kaga hadlaynay Soomaaliland iyo maalinta qaran ee 18 May waxaan idila socodsiinaya Xamse Ismaaciil Maxamed iyo Cabdiraxmaan Soomaaliland dhaxalkii awoowe ilaashay ku aabataliyay dhegaysteen laxumiya ceebba iska dhowray oo dhiig sokeeyay ka dhafteen
لم بحلقي أوي إلى شيء وأبطلي دنيستين لكمي عيب إسكالوني بيسوكي قدرتين ودرارتي